Soomaali waa salaamaya meel kastoo dunida joogtaanba ninkii wallaahi isaaq kala qaybiyay ee gooni u fariisiyay ee isagu la soo haray qayb la yiraahdo awallaan la soo haray ayaa axadii ciisaha u yeedhay wuxuu yidhi ciisow awdal state waa jabhad dagaal bayna igu soo wadaa in ay awdal iga xoreysana way rabtaa ee ha ii raacina muusow haddii horta jabhadii jirto waa adiga oo waa jabhadii SNP ee cunsuriga ahayd wey awdal statena samaroon maahina waa ciise annagaa ka mida awdal state iyaga kuu soo raaci mayne annagaa hor soconna awdal isku dad baan nahay isku dan baan nahay isku ujeeddaan nahay doonni qura ayaa wada saaranahay haddaad moodayso inaanu ciise ku jirin ciise isagaa hormeedu ah filinka ha ii soo raacina iyo isku binaaxeed baan nahay waan daawannay filinka beri hore ayaan daawannay dibna noogu soo celin maysid haba yaraatee awdal state waan garab taagannahay waa soomaalinimaan ku garab taagannahay xaqoodii bay doonayaan annaguna kaayagii baan doonaynaa iyo isku ujeeddaan nahay iyo isku hadaf ayaan nahay soomaali magacaa soomaaliyeed baan wada aaminsannahay adiguna soomaali ma aaminsanin soomaali nacayb baa kugu jira markaa ma soo raacaynee awdal state annagaa hor soconna annagaana awdal state ah oodina ab ka dhow cid walbana way nooga dhow yihiin idinku waad ka soo booddeen awdal waad ka soo booddeen degaan inagama dhexeeyo dal inagama dhexeeyo soomaalinimo unbaa inaga dhaxaysa tiina waad ka baxdeen waxaad tiri annagu soomaaliya ma nihine xabashi baan nahay amxaar baan nahaa tiraa baan idinku ogaa iminkana waxaan u malayn amxaarkii hadduu idhaahdo anigu heshiis iyo aqoonsi ma hayo inaad taiwan gashaan ood qaadataan jinsiyadda shiinaha inaad gashaan ayaan ka baqayna marka awdal state annaga wey ha u malaynaya samaroon keligee tahay laakiin waa ciise iyo samaroon intaydaanna odhan dhulka ka guura annagaa leh baan idinka raraynaa dhulka yaga that's our positionkaygu waa clear intaydaanna odhan ka guura annagaa idinka rarayna dhulka yaga taa horta waa inaad soo ogaataa ta kale ciise haddaan maamulkayga wax ka siin lahaa dadaan qoonlii kuma jiraan ciise intaas soomaali isdilaysa wax u baranay waxbarashadu waa u bilaash sida hargeysa maaha caafimaadkuna waa u bilaash cilmigaaga ilaa halka ugu dambaysaad gaaraysa PhD waa bilaash weliba lacag baa lagu siinayaa burs baa lagu siiyaa Jabuuti sidaa weysaa ula soco Jabuuti waa sidaas guri kasta oo ciise ah waxaa jooga master iyo PhD intay soomaaliyu isdilaysay iyagu waxay ka faa'iideen inay wax bartaan intii la isdilay oo dad wax barta weeyaan marka adigu ma qiimayn kartid oo ma odhan kartid waxba ma baran waayo standardkaaga way ka sarreeyaan ta kale qolooyinka reerkaaga ka socda ee gurigii madaxweynaha hor fadhiya la hadal heshiis idin dhex marayaa ma jiro adigu reer Jabuuti baad ahayd dalkii aad ka tirsanayd ahayd baad khaayintay treason baad tahay baasaboorkii iyo warqadihii Jabuuti baad leedahay waad ku soo kortood ku soo weynaatay abbahan uu ka shaqaysan jiray maantana dalkii baad khaayin ku tahay ood ka soo horjeeddaa ninkii wax ku taray baad ka soo horjeeddaa gacantii wax ku tartay ayaad qaniintay weelkii wax lagu siiyana waad ku xaartay reerkiinna ah ee halkan guriga madaxweynaha hor jooga waxbaan heshiisiinaynaa iyo xaal baan bixinaynaa leh xaal laydinkama aqbalayo toobadda marka qanjaha soo gaadha lama aqbalo magaca soomaaliyeed soo qaata oo calankii soomaaliyeed soo qaata oo istaakfirullaahi dhahada oo toobad keena markaa unbaa wadahadal la furi karaya intii ka horraysa wadahadal ma jiro waa inaad toobad keentaan soomaalinimo u toobad keena oo soo magaca soomaaliyeed idinkoo sita calankii soomaaliyeed yimaadda markaasaa laydinla hadlayaa laakiin horteed waad ku daalaysaan kuwa shir jaraa'id qabtay qaar ka mid aha oo hadlaayay oo lahaa wuu iska hadlayaa muuse biixi waxba Jabuuti waa waddankayagii waxaan nahay local governmentka Jabuuti baa ka shaqeeya nin isagu lahaa
وقلت إن اللوكال جفرمنت كشقيس بدقان باد كل اللي جيبوتي سال لوكال جفرمنت كوشقين أنا قارسان كل شيء سومالي لان دولة هوسي هرقيسة كمان شقين كرو سيدي باد أدو شقينيسا دولة هوسي جيبوتي oo lagu soo dooran karaa xildhibaan uga noqon kartaa soo dembi maaha adiga iskeene dembi wey sideed baarlamanka iyaga u iman kartaan oo baarlamanka iyaga laydinku dooran karaa ood guddoomiye baarlamaan uga noqon kartaan jabuuti ma degtaanba samaroon baa naga keen xiga waa soo duusheen annaga double standard nagulama noolaan kartaan qaarna madaxweyne ismaaciil margelle caayayaan qaarna waxay leeyihiin ismaaciil oo raalli ahaw timihiinnu dhanqura ha u xidhmaan timihiinnu waa inaad dhanqura u xiirtaan laba weji kuma shaqayn karaysaan waxaan sheegayaa waa habar awal weeyaan waa awallaan kooxda la baxday ee uu hogaaminayay muuse biix isaaqaa kale waa naga ceeblaayin annaga idinka weeye waxa ay tabayaan mid baa igu yidhi adigu waa dowladda waad ka soo hor jeedaa waad caayi jirta oo anigu haddaan ka soo hor jeedo ismaaciil waxa naga dhexeeya dal waxa naga dhexeeya ciidda waxa naga dhexaysa calanka waxa naga dhexeeya dowladnimada waxa naga dhexaysa jabuuti waxa naga dhexaysa qabiilkaan nahay waxa naga dhexeeya ilmaadeer baan nahay intaasoo dhan baa naga dhexaysa oon isku qabsanaynaa dad ay dani ka dhexayso ay wada hadlayaan laakiin xumaanuma qabo anigu adiga maxaa idinka dhexeeya habeen dhaar waa ninka reer gabiley oo caayiye ismaaciile dal idinkala dhexeeyo waddan idinkalama dhexeeyo ciid idinkalama dhexayso calan idinkama dhexeeyo madaxweyne kuma ah sababtaad ku caayaysaan maxay tahay soo idabdarro waa bini'aadamnimo waxaad ku caayaysaan idabdarro wey aniga caydayda amba dhaliishaydu waa tolnimo xumaan iyo xiqdi igama aha haddii maanta lagu soo duulo safka horaan galaya ninka garaba joogsanayaanahay laakiin haddii laba libaa xilib dhex mara way ku murantaa macmacaanka iyo kuruska waa la isku maagaa misna waxay heshiiyaan markuu dhidar u muuqda markaa wax xunoo fool xun dhidar aan arko oo aflagaadanaya buu wax ka sheegay safka horaan imanaya oo garab joogsanaya ismaaciil idinkuna waa qalad inaad nala joogtaan babaqal maadaama aad soomaali diideen oo idaan soomaaliba ahayn annagu dee soomaali baan nahay awdal statena waa soomaali annagaa horkacayna awdal state annagaa kaa raray dhulkayga intaan adigu ka guura dhowran annagaa laku dhulkayga ka guur oo ka baxa anigoo madaxa awdal state ku hadlaya kuwan jabuuti jooga annaga noo laba wajiilaynina waa laba wajiilayaal baatiin kuwa caayayina waa ininka un idinkoo calankii soomaaliyeed sita oo magacii soomaaliyeed sheeganayo uu idin horsado calanka cali bordeel iyo duqdan uu isagu dhalay ee qaahiro joogta idin ay isdaba socdaan noo yimaada oo ismaaciil u yimaada oo haddii wax idinka galeen amba aad gar ulta wadataan halka ugu yimaada oo gardid waa alladiida uu idin dhegaysani laakiin magaca soomaaliyeed ku yimaada soomaalinimo jacayl soomaaliyeed ku yimaada idinkoo muslina yimaada idinkoo axmaar haymanina idinkoo taiwana annaga shiinaha noo yimanina idinkoo muslina oo soomaaliya noo yimaada oona axmaar hayn oo soomaali jacayl idinku jiro waa la aqbalayaa marka toobadda waa laga aqbalaya laakiin iminka toobadda idinka aqbali mayso halkan hadday soo dhaafto ilaahay ma aqbalaa layidhi ismaaciil intaasoo dhan baan sugayna in maalin qura iska kii qabto oo oodid iska kii saaro 10 sane igu qaadatay aniga oon ka dhaadhiciyo inaad soomaali cadow ku tihiin inaad ciise cadow ku tihiin inaad muslim cadow ku tihiin inaad qarannimada soomaaliyeed cadow ku tihiin inaad cid kastoo soomaaliya cadow ku tihiin oo dhibaataysaan it takes me 10 years ba aniga igu qaadatay hadduu maanta ismaaciil gartay waanu ugu garab taaganna awdal statena waa annaga again kuwa horkacayaana waa annaga samaroon iyo ciise way midoobeen mid baan nahay maanta taa buuggaaga ku qoro adiguna traitor baa tahay dalkaagii aad warqadihiisa haysatay eed ku dhaartay sidaad sheegto ee aabbaha ka shaqayn jiray sidaad sheegto ayaad ku tahay treason khaayin baa tahay waa in lagu gooyaa warrant oo lagu soo xidhaa wixii warqad jabuuti haysta ee somalilan maamulkeeda ka tirsanna waa in laga qaadaa calanka somalilanna waa inaan jabuuti la soo gelin oo la mamnuucaa oon xafiisyada laga iman oon la arag qof sitaa suuqan marin
oo dhallinyaradu maqas qaaday ka goysa kuwa dhallinyarada reer Jabuuti qofkaad ku aragtaan maqas ka gooya ku celiya gabiile ha ku noqdo ha aqbalina wixii Soomaali kala goynay ha aqbalina Soomaali nacaybka Soomaali diidka ha aqbalina gabadan cunsuriga ah ha aqbalina ودماد دلقات كهدد tolerance ما جرو no tolerance markay Soomaali noqoto midnimada Soomaaliyeed iyo qarannimada Soomaaliya iyo dawladda Soomaaliyeed iyo Soomaalinimada iyo muslimnimada iyo ehelnimadu waa no tolerance zero tolerance waa inay sameeyaan reer Jabuuti taas la idinka baahan yahay aad baan idin salaamaya meel kasta oo dunida joogtaanba